arin aan ragi u dhicin ayaa maanta ka dhacday muxuu ahaay ama ku dhacday saameysay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha khaasatan Soomaalida ku nool dalka Sweden in ka badan 50 qofood oo Soomaali ah oo maanta u socotay magaalada Muqdisho oo ka bixisay airportka dalka Sweden ayaa maanta halkan ku xayiran qolada Turkish Airlines waxay leeyihiin waxa saakay noo soo dhacay warbixin ama wargelin ka timid immigrationka Soomaaliya ama immigrationka Soomaaliya oo dhahaya qofka Soomaaliga ee u soo socda magaalada Muqdisho waa inuu wataa passport Soomaali ah ama inuu wataa casuumaad arrinkaas ayaa maanta halkan waxay yihiin in ka badan 50 qofood sida arkaysiin dadkan waxay soo istaageen kolkantre ama saddexdii galabnimo ilaa hadda oo shantii iyo xoogaa tahayna way sii taagan yihiin welina wax xal ah ma jiro waa arrin la yaabo sidee xal ku yahay laakiin waxa halkaa taagan oo arkaysaan waa Soomaali diyaaraddan inay kacdo waxaa ka dhiman wax ka yar 40 daqiiqo halkaas ay wada taagan yihiin cidii Allah la cidii gaarsiin karta madaxda sare oo ugu horeeyay madaxweynaha dalka arrinkan hala gaarsiiyo qoliyaha immigrationka arrinkan hala gaarsiiyo waa arrin maanta halkan ka dhacay in qof dalkiisa u socda baasaboorkiisa ku caddahay inuu Soomaali yahay in la dhaho dalkaaga ma aadi kartid waa wax aad cajiib u ah waa arrin fiican haddii dalka Soomaaliya ku wada heshiiyaan dowladda Soomaaliya go'aan ka soo wada saarto arrinkaasi laakiin iyadoo wasiiradii xildhibaanadii madaxdii ee wada baasaboor ajnabi wataan in shacabka halkan lagu ciqaabo waa arrin aad u xun xeer waxay gaartay xataa tiro badan afiga dadkii in lagu waco muxuu ahaay qoliyihii amniga si wax loo xaliyo arrinkaas ayaa maanta soo kordhay waa wax aad loola fajaco runtii waa arrin aad loola fajaco wax halkaas dhooban wada arkaysaan oo wada Soomaali in ka badan 12 qof oo sakuurada iyo hay'adaha ammaanka ee wada jooga halkan waxa loo wacay waddanka madow meesha wada dhooban waxaana sabab u ah arrinkaasi warbixin ka soo baxday immigrationka Soomaaliya gudoomiye Cabdixakiin aadan ku salaama arrinkaasi la wadaag insha Allah taala qoliyaha dawladda madaxdeena sare la wadaag waxaa maanta halkan ka dhacay in Soomaalidii lagu wada xiro in qofkan passport Soomaali aan wadan inuu ka bixi karin airportkan ama casuumaad ama muxuu ahaay galaasho oo ka haysta immigrationka emailka immigrationka ayaana la siiyay in ka badan 50 qofood ayaa waxay u direen baasaboorradoodii ilaa haddana wax jawaab ah lagama hayo dadka halkan ay wada dhooban yihiin diyaaradda Turkish Airways inay kacdo waxaa ka dhiman wax ka yar 40 daqiiqo kolkan 6 ama 6 maqribnimo diyaaraddu way kacaysaa ummadda Soomaaliyeed halkan ay wada dhooban yihiin qoliyaha Turkish Airlines waxay leeyihiin waxa warbixin oo saaki markaan kombiyuutarada aan furnay aan u imaanin way ma ahan wax hore u jiray arrinkaasi hala la wadaago madaxda sare ee dawladda Soomaaliya aad baan idin salaamayaa hala wada